musharax Dr. Abuukar Aadan Cadde ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka aabiis loogu magac daray ee Muqdisho waxaana ku soo dhaweeyay barbaarta gaashaaman siyaasiyiin waxgarad haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa dhammaan mutasharrifta halkan fadhida madaxweynaha dhammaan waxay ujeedo salaamaya islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas kadib waxaan u taaganahay aniga aan ka socdaa dhammaan beelaha banaadiriga nabadoon u taagananahay waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Professor Abuukar soo dhawaan ku leenahay magaaladaada waaye dadkaaga waaye anaguna waxaan diyaar u nahay heel iyo hoob inaan ku garab istaago Abuukar Aadan Cabdulle Cismaan u sharaxan Dr. Abuukar Aadan Cabdulle Cismaan u sharaxan madaxtinimada wadanka waxaan raacsanayaa inta ku soo dhaweysay sidaas oo kale aan ku soo dhaweeyo inuu ilaahayna u sahlo in maaragta madaxtinimada la raadina ilaahay u sahlo kii wadankan ka bixiyo oo sanadka bixiyana alla inuu ka dhigo horta calafaa la cunaaya ilaahay calafkiisii ha ka dhigo waxaa maanta aad iyo aad sharaf weyn ii ah cisad mudan qadarin mudan inaan ku soo dhaweyno musharax Abuukar Dr. Abuukar Aadan Cadde ama Aadan Cabdulle Cismaan Dr. ku soo dhawaaw waxaad tahay aabaha wuxuu ahaa ninkii Soomaaliya doobo madax xurnimada ninkii sanad bixiyay xurnimada Soomaaliya keenay madaxweynihii u horeeyay adigana ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa ninkii maanta muranka iyo qaska Soomaaliya ka taagan kii ka bixi lahaa الله كاديو وقتي وحد نوع ماضي أو باهنا هاي وقتي وحد نوع ماضي أنين صومالي هذا فرسي عداء جنرال كسيلو فرسي عداء الله كسر دي الله كاديو دكتور أبوكر كسر دواء صوماليا ودنك هاجواي سيدي أبها مدحوينة طلبات صحيح ورنتي شرف بنوتة مانتا soo dhaweynta musharax madaxweyne Abuukar Aadan Cabdulle Cismaan oo aan maanta ku soo dhaweynayno garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Cadde International Airport runtii waa maalin weyn oo sharaf noo ah inaan soo dhaweyno musharaxa oo maaragtay sida laga dhawaajiyay nin dhakhtar ah oo maaragtay siyaasina ah ee ku noolaa dalka Mareykanka ee maanta u yimid samataynta dalka Soomaaliya حالته كجرتو إنه وحكة قبل كارو إنه وحكة قبتنا يعني أسو شرحي ما أنت لو مشرح مدحويني وأنا تاريخ لنا تذكر ترى تاريخ تذكر برتا دوني دوايه تاريخ تذكر برتا دوني دوايه هذا تاريخ دواء سلطان يدريد وكسو جيد وآدم عبد العثمان الحويني وذاك وري مدحوينه تاريخ أقول لي أدون كي أفريقيا عدالتي ديمقراطية ناس مباراة شخصي كستكي واجد جري كلمات الشبابين مركا أرنتا دكتور أبوكر مشرح الحويني ما توحواي continuation ديمقراطية دي هي عدالتي الحويني هذا عبد الله ويعني ويقلي أما بدو أسي صوماليا إنه هالكذي كسي أم بقاء وما توي. دنك كله musharax madaxweyne Dr. Abuukar Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ayaa dhankiisa ka mahad celiyay soo dhaweyntii loogu sameeyay Muqdisho musharax Dr. Abuukar Aadan Cadde ayaa waxa uu sheegay in uu ka rajaynayo ummadda Soomaaliyeed inay ugu abaalgudaan codkooda xildhibaanada qaranka si uu ugu adeego bulshada Soomaaliyeed ee 30 sano la soo dhaafay la daalaa-dhacay burburka aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo laabtay wadankii iyo magaaladii Xamar magaalada Xamar qaali ugu ah magaaladii aan soo barbaaray ama soo bartay aan ku sameeyay shaqada qaalinta aan ku noqday macallin bare maanta waxaan ku soo laabtay anoo u taagan inaan hoggaanka madaxnimada wadanka inaan u tartamo waxaan rabaa inaan ka qayb galo samata bixinta
waddanka iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatadii ku jiraan. waa safar cusub aan rabo aan doonayo inaan isu raacno annagoo mari doona jidkii ay mareen waalidiinteeni SYL toosan oo loo horseedi doono guul waarta. maanta wixii ka dambeeya waxaan isku heli doonaa waqti badan aan isku wareysano aan idinkugu soo bandhigi doono barnaamijkayga siyaasadeed. aad iyo aad waxaan idinkugu tahniyeynayaa sida diiran ay ii soo dhaweyseen maanta. waa maalin farxad badan. Abuukar Aadan Cadde ayaa waxa uu 30 sano ee burburka uu qayb ka ahaa badbaadinta ummadda Soomaaliyeed isaga oo aad ugu dadaalay sidii ay caafimaad ku heli lahaayeen bulshada Soomaaliyeed. Xamdiladan Somali Television Network magaalada Muqdisho.